السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta sharafta badan waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u cajiib badan. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ku soo dhow, subscribe-na noo saar. Waa ku mahadsantahay haddii aad leegtana noo saarto muuqaalka. Waa oday faqiira waxa uu la daalaacayaa duruufaha nolosha. Ma haysto cid uu weeshado oo waxa uu ku yahay nolosha keligii. ahaan waxa uu ku jiraa xilligii la daryeeli lahaa, laakiinse duruufta ayaa halkaa dhigtay. Odaygani waxa uu ku noolaa dalka Thailand. Waxa uu subaxii u shaqo tagaa wadooyinka si uu u soo urursado caagadaha ay dadku tuuraan, kuwaasoo balaastika laga sameeyo. Xitaa mararka qaar waxa uu faraha la galaa xashiish meel yaala. Noloshu aad ayay u qaraadhahay mararka qaar, wax kastana waa ay ku kalifaysaa. Odaygani waxa yar uu ka helo halkaas ayuu maalintiisa iyo qutilyoonkiisa ku maareeyaa. xitaa mararka qaar waxa uu la kulmaa dhibaatooyin aad u badan. Dadka qaar ayaa aad u qalbi adag oo waxay ku sameeyaan inay xashiish dusha kaga shubaan, isagoo uu ku guda jira inuu ka dhex urursado xashiishka caagadaha. Intaasoo dhan waxa uga sii daran, lugo uu ku istaago ku socdo ma haysto, sababtoo ah lugo macmar ayuu xidhan yahay, kuwaasoo caag laga sameeyey. Odaygani haddana noloshiisa waa uu ku qanacsanaa, sababtoo ah qanaacadu waa qalbiga. Odaygani mararka qaar waxa uu soo maraa makhaayadaha si uu u uriyo carafta cuntada, sababtoo ah isagoo awood uma lahan inuu iibsado cuntada aadka u macaan. maalmaha ka mid ah waxa uu soo maray wadooyinka. Waxa uuna halkaas ku arkay arday iskuuleeya oo iibsanaysa wax, ilaa hal gabadh oon waxba iibsanaynin mooyee. Waa uu yaabay, waxa uuna fahmay gabadhan yar inaysan waxba haysanin, ay aad u faqiir tahay. Gacanta ayuu u taagay, lacag ayuuna siiyey. Gabadhii aad ayay u faraxday, waxayna la yaabtay odaygan faqiirka ah ee iyadii danaynaya. Haddii si naxariis darah lagu jabiyey, laakiin aad weli haysato geesinimada in aad u naxariisto dadka kale, waxaad mudan tahay jacayl ka qoto dheer badda lafteeda. Inantii yareed aad ayay u faraxday, waxayna u carartay goobtii wax lagu iibinayay. waxyaabihii carruurtii iibsanayeen ayay iibsatay, waxaana u soo hadhay baaqi. qof aad u faqiira lacag ku siiyey, haddana baaqiga kaga soo hadhay waa arrin la yaab leh. maalmaha ka mid ah, inantii yareed ayaa waxay aragtay odaygii faqiirka ahaa. aad ayayna ugu faraxday arrintaas. odaygii oo howl maalmeedkiisii isaga guda jira ayaa waxaa si kadiisa u jiray tuug. odaygiina waa uu ka duldhacay, laakiinse nasiib wanaag odaygii waxa uu ka reebay boorsadii uu watay tuuggii. tuugguna waxauu rabay inuu xoog kaga qaado maadaama odaygan uu curyaan yahay, laakiinse odaygii waa uu sii dayn waayay boorsadii ilaa tuuggii uu afka laag kaga dhuftay. inantii yareed meel fog ayay ka arkaysaa, laakiinse awood uma lahan inay ka riddo. goobta waxaa ku soo dhowaaday booliskii. nimankii tuugada ahaan halkaas way iskaga yaaceen iyagoo aan waxba qaadanin. odaygii boorsada haysta ayaa waxuu ku wareelay dad aad u badan oo ku urursan. dadku waxa ay leeyihiin, isaga oo sidan u yaalla miyuu boorso qof ka xadayaa? dadkiina waxay u fahmeen sheekadii inuu isaguba tuuga yahay. askartiina waxayba dembigii ku qaadeen ninkii faqiirka ahaa, iyaga oo jeebeeyey. hubsiima hal baa la siistaa bay Soomaali dhahdaa. odaygii faqiirka xabsiga ayaa loo taxaabay, isagoo aan waxba laga weydiinin arrinta meesha ka dhacday. xaaladdiisuna aad ayuu adkaatay. inantii yareed iyadu weli waxay rumaysan tahay odaygan faqiirka inuusan dembiga lahayn, laakiinse awood ay ku sheegto ma lahan. dadka wanaagsan cidna ma waxyeeleeyaan, laakiin iyo wax badan ayay isdhaawacaan mana dareemaan. maalmuhu waa ay socdaan, isagana halkan ayay noloshu xabsi uga dhigtay. inantii yareed weli waa ay xasuusan tahay oo qalbigeega ayuu ku jiraa odaygan faqiirka ahaa. maalmaha ka mid ah ayaa waxay tiifiga ka daawatay dad la magac baxay dhaqdhaqaaqa iyo caawinta masaakiinta. waxay u degdegtay inay dadkaa la xidhiidho, waxayna soo saaratay baaqigii maalintii u soo noqday, iyadoo raadisay goobaha dadka lagala xidhiidho. islamarkaasna waxayna la hadashay ururkii mucaawinada masaakiinta. waxayna u sheegtay dhibaatada maalintaas halkaa ka dhacday, inuusan odayga miskiinka uuna shaqo ku lahayn. badanaa qorshaha koowaad ee nolosha waxa uu ina baraa cashar aan ku adkaano nolosha ilaa iyo dhammaadka. ha ka quusan midka guuldaraystay waa midka quustay. dadkii waxa ay soo raadiyeen xabsigii uu ku xidhnaa ninkii miskiinka ahaa. waxa ayna heleen goobtii uu ku jiray, iyaga oo u soo degdegay inay ka soo saaraan. odaygii aad ayuu u farxay. odayga dibadda waxaa ku sugayaa dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin
gabadhii boorsada uu qabtay iyo inantii yareedu maalintii caawiyay. waxay u wadaan hadiyado aad u qaalisan. waxay u soo sameeyeen lug macmala taas oo caag ka samaysan oo aad u qurux badan. odaygii markuu arkay aad ayuu ugu farxay, qalbigiisana farxad ayaa buuxisay. dadka qaarkiis waa ay kaa tegi doonaan, laakiin tani macnaheedu ma aha dhammaadka sheekadaada, waa uun dhammaadka doorka ay ku leeyihiin sheekadaada. mar walba waxaa jiri doona qulub aan ku nici doonin si kastoo aad u dayacdo, iyo qulub aan ku jeclaan doonin si kastoo aad u ixtiraamto, ee doorashada ugu habboon. odaygan miskiinka ah lama cabiri karo dareenkiisa. waan ka gudbay ilaa aan ka ilaaway sidii uu xanuunkaygu ahaa. waan adkaystay ilaa aan mar kale awoodi waayey in aan ooyo. waan la qabsaday kelinimada iyo go'doonka ilaa aan ilaawo sidii aan ula macaamili lahaa bini'aadamka. maskaxdayda iyo qalbigaygu si lama filaan ayay isku beddeleen. ma garanaysaa micnaha dhabta ee kelinimada? wax yar oo aad bixiso ayaa wax weyn ku siin karaa. sida odaygan oo kale, afkayga ayay xidheen si aan u hadlin, balse indhahayga ayaa hadlay hadal ay ku wax dareemo oo keliya ay maqlaan. mararka qaarkood waxaaba dhici karta nolosha furaheeda iyo jihada ay u socoto in ay sabab u noqoto wax yar oo aad bixiso. ha yaraysanin mar walba waxaad haysato, masaakiintana waxaad u yeelataa il naxariis leh. nabadgelyo korkooda ha ahaato qulubta murugada ay meel walba kaga timid. kadib intay dhoola caddeeyeen yidhaahday samir qurux badan, ilaahay baan kaalmaysanay. naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaato kuwayna jeclaaday ayna garab istaagay lacag la'aan, nolosheenna baaqi ku sii ahaada ilaa dhammaadka. suuragal ma aha inaad aragto xidigaha wakhtiga mugdiga jira mooyaane. sidaas oo kale dadka qaar oo nolosheenna ku jira ma soo muuqdaan xilliga adag mooyaane. wakhtiga adag waxyaabo badan ayaa inoo cadaada. qof kastoo nolosha aad wax ku dhaanto ku caawi wixii aad awooddo. ha yaraysanin wanaagga. rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu lahaa laa taxqiranna min almacruufi shay-a.